بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعن داود يالكان وبنك برودكشن كسو دواده برنامج وريدكنا دور qodobada ku jirana waxa kamida Fahd Yaasin oo diyaariyay warbixin dilka Ikraan Tahliil dusha looga saaray beesha Afgaal iyo Ikraan oo lagu suntay inay ahayd laba shaar si guud qatar ugu hayd amniga dhibanaha aan lagu hay nolol iyo geeri oo lagu eeday doona inay qayb ka ahayd qorshihii lagu qaarijiyay injineeriso maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wada Fahd Yaasin ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil qodobada kale ee barnaamij wareedka ku jirana waxa kamida weerar laga cabsi qaba inay ka dhacaan Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare kooxda farmaajo oo bilowday ololihii ugu dambeeyay ee ka dhana senator Muuse Suudi Yalaxow iyo farmaajo iyo Rooble oo maanta si waji ka waji ay soo hor fadhiisanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee kulankooda qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah waana maalin sabtiya taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 9 ee September sanada 2021 balse daawada marka hore muuqaalkan like saaro si share garee si uu gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed nuguna soo biiro saaxiib naga dhigo si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka waa hagaag aynu ku bilownay xogo hoose oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in kooxda farmaajo iyo Fahd Yaasin ay hogaaminayaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil oo gacanta nabad sugidda ku maqan tan iyo 26 Juun ee sanadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa agaasimiyay hore ee NISA ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay'adda nabad sugidda baahisay in kooxda Al-Shabaab ay dileen Ikraan tilaabadaas oo wadna qabad ku noqota Fahd Yaasin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee farmaajo uu ku jiro ayaa sababtay in Fahd uu sheego in xogta kiiska oo faahfaahsan uu la wadaagayo golaha amniga go'aanka uu qaatay wariyii hore ee Al Jazeera waxa ay soo dadajisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga raacdeeyo ninka lagu tuumayo inuu dilo Ikraan Tahliil tan iyo xilligaas kooxda farmaajo iyo Fahd ay horkacaan waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u koreen sidii ay kaga hortagi lahaayeen dadaalada ra'iisul wasaaraha ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan si Fahd looga badbaadiyo in maxkamad la tiigsado farmaajo ayaana 18 bishan isugu yeeray golaha amniga si uu Fahd Yaasin ula wadaago xogta kiiskan haddaba waa maxay qorshaha ay dejiyeen hogaankii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si ay isaga riixaan dilka Ikraan Tahliil sida aan xogta ku helnay Fahd Yaasin waxa uu Ikraan Tahliil ku eeday doonaa inay ku lug lahayd qarixii lagu qaarijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow isla markaana ay aana qabiil iyo ka argosi u dileen shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay duqii Muqdisho kuwaas oo dalka ka baxsaday kadib falka qaarijinta ah Ikraan sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan Fahd waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa in Ikraan ay wada shaqeyn ay howlaha ugu fududaysa kala dhaxeeya Al-Shabaab isla markaana ay ahayd laba shaar si guud qatar ugu ahayd laamaha amniga dilka Ikraan Tahliil waxa dusha laga saari doonaa shakhsiyaad ku hayba Allah u naxariistay injineeriso si culayska looga dulqaado beesha Fahd Yaasin ee reer Ow Xasan oo dhalinyaro ka soo jeeda lagu afduubtay Beledweyne kadib markii lagu dhawaaqay geerida Ikraan ujeedada qodobkan waa in la isku dhifto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gaaljecel iyo Afgaal si loo marin habaabiyo kiiska isla markaana horgeynta sharciga looga badbaadiyo taliskii hore ee hay'adda NISA si aan cadaalad loogu helin Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin dhinaca kale waxa saacadaha soo socda la filayaa inay kulmaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Rooble sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kooxaha dhexdhexaadinta wada farmaajo ayaa ka dalbaday qoorqoor iyo lafta gareen inay la kulansiiyaan Rooble kulanka ayaana diiradda lagu saari doonaa maamulka laamaha amniga gaar ahaan booliska iyo hay'adda nabad sugidda oo ay isku hayaan madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu wali ku adkeysanayo maamulka laamaha amniga halka uu diidan yahay arrintaasi Maxamed Xuseen Rooble labada madaxweyne goboleed ee waawaanta ka dhex wada dhinacyada ayaa sheegaya inay qabaan rajo wanaagsan oo ku saabsan soo afjiridda khilaafka labada dhinac ee daba dheeraaday madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in la soo xiro kiiska Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin dhinaca kale haddii aynu eegnana cabsi ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhawaan qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen saraakiishii laamaha amniga ayaa sheegay inay heleen xogo sheegaya in Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee Jowhar ka dhacaysa si looga hortago Al-Shabaab waxa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo sugaya nabadgelyada Jowhar waxaa ku sugan magaaladan oo 90 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaarisay doorashada 8 kursi ee Hirshabeelle loo qoondeeyay
magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa wali ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan xubnaha 8 kursi ee ka imaanaya dhanka maamulkaasi laguna dooranayo Jowhar diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ayaa la soo gabagabeynayaa gelinka dambe ee maanta sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabelle sidoo kale berri oo ahada kuna beegan 12 bisha Sebtembar ayaa qorshuhu yahay inay hadal jeedin sameeyaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxaa la gudageli doonaa qabashada doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya Jowhar ugu dambeyntiina xogo hoose ayaa sheegaya in kooxda farmaajo ay bilaabeen fariimo cabsi gelin ah oo loo dirayo shaqaalaha dowladda federaalka ee ku heybta ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo lagu wargelinayo inay way doonaan shaqada haddii xildhibaanka ku matala maamulkaasi uu codsiyo senator Muuse Suudi Yalaxow sidoo kale fariimo cabsi gelin ah ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan inay wakiil u yihiin shaqaalaha la handaday kuwaas oo loo sheegay inay ciqaab adag la kulmi doonaan haddii xubnaha baarlamaanka ee ku matala Hirshabelle ay doortaan Muuse Suudi talaabadan ayaa la yaab ku noqotay sida xoguhu sheegayaan shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhaxmaraya arrintan oo lagu tilmaamay cijiyo ku dirir midkii ugu dambeeyay ee laga soo abaabulayo xafiiska madaxweyne Farmaajo Muuse Suudi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa senatarkii ugu miisaanka cuslaa 8 senatar ee laga soo doortay Jowhar 4 sano ee la soo dhaafay Farmaajo iyo kooxdiisu waxay qarash kasta u huri doonaan in Muuse Suudi ay ka guuleystaan si ay kursigan u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan oo aad ugu dhow dhanka madaxtooyada dhinaca kale Muuse Suudi ayaa diyaarinaya lacagtii ugu badnayd si uu u difaacdo booskiisa guud ahaan barnaamij wareedkii duhur ee bandhiga production ayaa intaa ku dhan daawada muuqaalkan like saar oo share garee nuguna soo biir si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdega dhanka waqooyi kaga beegan Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaarisay doorashada 8 kursi ee Hirshabelle loo qoondeeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa wali ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan xubnaha 8 kursi ee ka imaanaya dhanka maamulkaasi laguna dooranayo Jowhar diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ayaa la soo gabagabeynayaa gelinka dambe ee maanta sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabelle sidoo kale berri oo ahada kuna beegan 12 bisha Sebtembar ayaa qorshuhu yahay inay hadal jeedin sameeyaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxaa la gudageli doonaa qabashada doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya Jowhar ugu dambeyntiina xogo hoose ayaa sheegaya in kooxda farmaajo ay bilaabeen fariimo cabsi gelin ah oo loo dirayo shaqaalaha dowladda federaalka ee ku heybta ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo lagu wargelinayo inay way doonaan shaqada haddii xildhibaanka ku matala maamulkaasi uu codsiyo senator Muuse Suudi Yalaxow sidoo kale fariimo cabsi gelin ah ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan inay wakiil u yihiin shaqaalaha la handaday kuwaas oo loo sheegay inay ciqaab adag la kulmi doonaan haddii xubnaha baarlamaanka ee ku matala Hirshabelle ay doortaan Muuse Suudi talaabadan ayaa la yaab ku noqotay sida xoguhu sheegayaan shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhaxmaraya arrintan oo lagu tilmaamay cijiyo ku dirir midkii ugu dambeeyay ee laga soo abaabulayo xafiiska madaxweyne Farmaajo Muuse Suudi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa senatarkii ugu miisaanka cuslaa 8 senatar ee laga soo doortay Jowhar 4 sano ee la soo dhaafay Farmaajo iyo kooxdiisu waxay qarash kasta u huri doonaan in Muuse Suudi ay ka guuleystaan si ay kursigan u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan oo aad ugu dhow dhanka madaxtooyada dhinaca kale Muuse Suudi ayaa diyaarinaya lacagtii ugu badnayd si uu u difaacdo booskiisa guud ahaan barnaamij wareedkii duhur ee bandhiga production ayaa intaa ku dhan daawada muuqaalkan like saar oo share garee nuguna soo biir si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdega bismillaahi raxmaani raxiim kulati wacan daawadayaal halkani waa bandhiga production ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena duhur qodobada ku jirana waxaa ka mid Fahdi Yaasiin oo diyaariyay warbixin dilka Ikraan Tahliil dusha looga saarayo beesha Abgaal iyo Ikraan oo lagu suntay inay ahayd laba shaar si guud qatar ugu hayd amniga dhibanaha aan lagu hayn nolol iyo geeri oo lagu eeday doona inay qayb ka ahayd qorshihii lagu qaarijiyay injineer Ilisow maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wada Fahdi Yaasiin ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil qodobada kale ee barnaamij wareedka ku jirana waxaa ka mid weerar
laga cabsi qabo inay ka dhacaan jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare kooxda farmaajo oo bilowday ololihii ugu dambeeyay ee ka dhana senator muuse suudi yalaxow iyo farmaajo iyo rooble oo maanta si weji ka weji isu hor fadhiisanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee kulankooda qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah waana maalin sabtiya taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 9 ee September sanada 2021 balse daawada marka hore muuqaalkan like saaro si share garee si uu gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed nuguna soo biiro saaxiib naga dhigo si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka waa hagaag aynu ku bilownay xogo hoose oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in kooxda farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay hogaaminayaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil oo gacanta nabad sugidda ku maqan tan iyo 26 Juun ee sanadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa agaasimihii hore ee NISA ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay'adda nabad sugidda baahisay in kooxda Al-Shabaab ay dileen Ikraan tilaabadaas oo wadna qabad ku noqota Fahad Yaasiin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee farmaajo uu ku jiro ayaa sababtay in Fahad uu sheego in xogta kiiska oo faahfaahsan uu la wadaagayo golaha amniga go'aanka uu qaatay wariyihii hore ee Al Jazeera waxa ay soo dadejisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga raacdeeyo ninka lagu tuumayo inuu dilo Ikraan Tahliil tan iyo xilligaas kooxda farmaajo iyo Fahad ay horkacaan waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u koreen sidii ay kaga hortagi lahaayeen dadaalada ra'iisul wasaaraha ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan si Fahad looga badbaadiyo in maxkamad lala tiigsado farmaajo ayaana 18 bishan isugu yeeray golaha amniga si uu Fahad Yaasiin ula wadaago xogta kiiskan haddaba waa maxay qorshaha ay dejiyeen hogaankii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si ay isaga riixaan dilka Ikraan Tahliil sida aan xogta ku helnay Fahad Yaasiin waxa uu Ikraan Tahliil ku eeday doonaa inay ku lug lahayd qarixii lagu qaarijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow isla markaana ay aana qabiil iyo ka argoosi u dileen shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay duqii Muqdisho kuwaas oo dalka ka baxsaday kadib falka qaarijinta ah Ikraan sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan Fahad waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa in Ikraan ay wada shaqeyn ay howlaha ugu fududaysa kala dhaxeeya Al-Shabaab isla markaana ay ahayd laba shaare si guud qatar ugu ahayd laamaha amniga dilka Ikraan Tahliil waxa dusha laga saari doonaa shakhsiyaad ku hayba Allah u naxariistay injineer Yariisow si culayska looga dulqaado beesha Fahad Yaasiin ee reer Ow Xasan oo dhalinyaro ka soo jeeda lagu afduubtay beledweyne kadib markii lagu dhawaaqay geerida Ikraan ujeedada qodobkan waa in la isku dhifto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gaaljecel iyo abgaal si loo marin habaabiyo kiiska isla markaana horgeynta sharciga looga badbaadiyo taliskii hore ee hay'adda NISA si aan cadaalad loogu helin Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin dhinaca kale waxa saacadaha soo socda la filayaa inay kulmaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Rooble sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kooxaha dhexdhexaadinta wada farmaajo ayaa ka dalbaday qoorqoor iyo lafta gareen inay la kulansiiyaan Rooble kulanka ayaana diiradda lagu saari doonaa maamulka laamaha amniga gaar ahaan booliska iyo hay'adda nabad sugidda oo ay isku hayaan madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu wali ku adkeysanayo maamulka laamaha amniga halka uu diidan yahay arrintaasi Maxamed Xuseen Rooble labada madaxweyne goboleed ee waawaanta ka dhex wada dhinacyada ayaa sheegaya inay qabaan rajo wanaagsan oo ku saabsan soo afjiridda khilaafka labada dhinac ee daba dheeraaday madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in la soo xiro kiiska Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin dhinaca kale haddii aynu eegnana cabsi ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhawaan qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen saraakiishii laamaha amniga ayaa sheegay inay heleen xogo sheegaya in Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee Jowhar ka dhacaysa si looga hortago Al-Shabaab waxa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo sugaya nabadgelyada Jowhar waxaa ku sugan magaaladan oo 90 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaarisay doorashada 8 kursi ee Hirshabeelle loo qoondeeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa wali ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan xubnaha 8 kursi ee ka imaanaya dhanka maamulkaasi laguna dooranayo Jowhar diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ayaa la soo gabagabeynayaa gelinka dambe ee maanta sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle
sidoo kale berri oo ahada kuna beegan 12 bisha Sebtembar ayaa qorshuhu yahay inay hadal jeedin sameeyaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxaa la gudageli doonaa qabashada doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya Jowhar ugu dambeyntiina xogo hoose ayaa sheegaya in kooxda farmaajo ay bilaabeen fariimo cabsi gelin ah oo loo dirayo shaqaalaha dawladda federaalka ee ku heybta ah xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo lagu wargelinayo inay way doonaan shaqada haddii xildhibaanka ku matala maamulkaasi uu codsiyo senator Muuse Suudi Yalaxow sidoo kale fariimo cabsi gelin ah ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan inay wakiil u yihiin shaqaalaha la handaday kuwaas oo loo sheegay inay ciqaab adag la kulmi doonaan haddii xubnaha baarlamaanka ee ku matala Hirshabelle ay doortaan Muuse Suudi talaabadan ayaa la yaab ku noqotay sida xoguhu sheegayaan shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhexmaraya arrintan oo lagu tilmaamay cijiyo ku dirir midkii ugu dambeeyay ee laga soo abaabulayo xafiiska madaxweyne Farmaajo Muuse Suudi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa senatarkii ugu miisaanka cuslaa 8 senatar ee laga soo doortay Jowhar 4 sano ee la soo dhaafay Farmaajo iyo kooxdiisu waxay qarash kasta u huri doonaan in Muuse Suudi ay ka guuleystaan si ay kursigan u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan oo aad ugu dhow dhanka madaxtooyada dhinaca kale Muuse Suudi ayaa diyaarinaya lacagtii ugu badnayd si uu u difaacdo booskiisa gudahaan barnaamij wareedkii duhur ee bandhiga production ayaa inta ku dhan daawada muuqaalkan like saar oo share garee nuguna soo biir si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdega bismillahir rahmanir rahim kulati waan daawadayaal halkani waa bandhiga production ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena duhur qodobada ku jirana waxaa kamid Fahdi Yaasin oo diyaariyay warbixin dilka Ikraan Tahliil dusha looga saarayo beesha Afgaal iyo Ikraan oo lagu suntay inay ahayd laba shaar si guud qatar ugu hayd amniga dhibanaha aan lagu hay nolol iyo geeri oo lagu eeday doona inay qayb ka ahayd qorshihii lagu qaarijiyay Engineer Ilisow maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wada Fahdi Yaasin ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil qodobada kale ee barnaamij wareedka ku jirana waxaa kamid weerar laga cabsi qaba inay ka dhacaan Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare kooxda Farmaajo oo bilowday ololihii ugu dambeeyay ee ka dhana senator Muuse Suudi Yalaxow iyo Farmaajo iyo Roble oo maanta si waji ka waji ay soo hor fadhiisanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee kulankooda qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah waana maalin sabtiya taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 9 ee Sebtembar sanada 2021 balse daawada marka hore muuqaalkan like saar oo si share garee si uu gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed nuguna soo biir oo saaxiib naga dhigo si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka waa hagaag aynu ku bilownay xogo hoose oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in kooxda Farmaajo iyo Fahdi Yaasin ay hogaaminayaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil oo gacanta nabad sugidda ku maqan tan iyo 26 Juun ee sanadan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa agaasimihii hore ee NISA ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay'adda nabad sugidda baahisay in kooxda Al-Shabaab ay dileen Ikraan tilaabadaas oo wadna qabad ku noqota Fahdi Yaasin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee Farmaajo uu ku jiro ayaa sababtay in Fahad uu sheego in xogta kiiska oo faahfaahsan uu la wadaagayo golaha amniga go'aanka uu qaatay wariyii hore ee Al Jazeera waxa ay soo dadajisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga raacdeeyo ninka lagu tuumayo inuu dilo Ikraan Tahliil tan iyo xilligaas kooxda Farmaajo iyo Fahad ay horkacaan waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u koreen sidii ay kaga hortagi lahaayeen dadaalada ra'iisul wasaaraha ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan si Fahad looga badbaadiyo in maxkamad lala tiigsado Farmaajo ayaana 18 bishan isugu yeeray golaha amniga si uu Fahad Yaasin ula wadaago xogta kiiskan haddaba waa maxay qorshaha ay dejiyeen hogaankii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si ay isaga riixaan dilka Ikraan Tahliil sida aan xogta ku helnay Fahad Yaasin waxa uu Ikraan Tahliil ku eeday doonaa inay ku lug lahayd qarixii lagu qaarijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow isla markaana ay aana qabiil iyo ka argosi u dileen shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay duqii Muqdisho kuwaas oo dalka ka baxsaday kadib falka qaarijinta ah Ikraan sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan Fahad waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa in Ikraan ay wada shaqeyn ay howlaha ugu fududaysa kala dhaxeeya Al-Shabaab isla markaana ay ahayd laba shaar si guud qatar ugu ahayd laamaha amniga dilka Ikraan Tahliil waxa dusha laga saari doonaa shakhsiyaad ku hayba Allah u naxariistay Engineer Ilisow si culayska looga dulqaado beesha Fahad Yaasin ee reer Ow Xasan oo dhalinyaro ka soo jeeda lagu afduubtay Beledweyne kadib markii lagu dhawaaqay geerida Ikraan
ujeeddada qodobkan waa in la isku dhifto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gaaljecel iyo abgaal si loo marin habaabiyo kiiska isla markaana horgeynta sharciga looga badbaadiyo taliskii hore ee hay'adda NISA si aan cadaalad loogu helin Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin. dhinaca kale waxaa saacadaha soo socda la filayaa inay kulmaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Rooble sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kooxaha dhexdhexaadinta wada. Farmaajo ayaa ka dalbaday Qoorqoor iyo lafta gareen inay la kulansiiyaan Rooble. kulanka ayaana diiradda lagu saari doonaa maamulka laamaha amniga gaar ahaan booliska iyo hay'adda nabad sugidda oo ay isku hayaan. madaxweyne Farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu wali ku adkeysanayo maamulka laamaha amniga halka uu diidan yahay arrintaasi Maxamed Xuseen Rooble. labada madaxweyne goboleed ee waawaanta ka dhex wada dhinacyada ayaa sheegaya inay qabaan rajo wanaagsan oo ku saabsan soo afjiridda khilaafka labada dhinac ee daba dheeraaday. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in la soo xiro kiiska Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin. dhinaca kale haddii aynu eegnana cabsi ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhawaan qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen. saraakiishii laamaha amniga ayaa sheegay inay heleen xogo sheegaya in Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee Jowhar ka dhacaysa. si looga hortaga Al-Shabaab waxaa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo dheeraada oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo sugaya nabadgelyada Jowhar. waxaa ku sugan magaaladan oo 90 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaarisay doorashada 8 kursi ee Hirshabeelle loo qoondeeyay. magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa wali ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan xubnaha 8 kursi ee ka imaanaya dhanka maamulkaasi laguna dooranayo Jowhar. diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ayaa la soo gabagabeynayaa gelinka dambe ee maanta sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle. sidoo kale berri oo ahada kuna beegan 12 bisha Sebteembar ayaa qorshuhu yahay inay hadal jeedin sameeyaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxaa la gudageli doonaa qabashada doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya Jowhar. ugu dambeyntiina xogo hoose ayaa sheegaya in kooxda Farmaajo ay bilaabeen fariimo cabsi gelin ah oo loo dirayo shaqaalaha dowladda federaalka ee ku haybta ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo lagu wargelinayo inay way doonaan shaqada haddii xildhibaanka ku matala maamulkaasi uu codsiyo senator Muuse Suudi Yalaxow. sidoo kale fariimo cabsi gelin ah ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan inay wakiil u yihiin shaqaalaha la handaday kuwaas oo loo sheegay inay ciqaab adag la kulmi doonaan haddii xubnaha baarlamaanka ee ku matala Hirshabeelle ay doortaan Muuse Suudi. tallaabadan ayaa la yaab ku noqotay sida xoguhu sheegayaan shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhex marayaa arrintan oo lagu tilmaamay cijiyo ku dirir midkii ugu dambeeyay ee laga soo abaabulayo xafiiska madaxweyne Farmaajo. Muuse Suudi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa senatarkii ugu miisaanka cuslaa 8 senatar ee laga soo doortay Jowhar 4 sano ee la soo dhaafay. Farmaajo iyo kooxdiisu waxay qarash kasta u huri doonaan in Muuse Suudi ay ka guuleystaan si ay kursigan u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan oo aad ugu dhow dhanka madaxtooyada. dhinaca kale Muuse Suudi ayaa diyaarinaya lacagtii ugu badnayd si uu u difaacdo booskiisa. guud ahaan barnaamij wareedkii duhur ee bandhiga production ayaa intaa ku dhan. daawada muuqaalkan like saar oo share garee nuguna soo biir si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdega. bismillaahi raxmaani raxiim kulati wacan daawadayaal halkani waa bandhiga production ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena duhur qodobada ku jirana waxaa ka mid ah Fahdi Yaasiin oo diyaariyay warbixin dilka Ikraan Tahliil dusha looga saarayo beesha Abgaal iyo Ikraan oo lagu suntaya inay ahayd laba shaar si guud qatar ugu hayd amniga dhibanaha aan lagu hayn nolol iyo geeri oo lagu eeday doono inay qayb ka ahayd qorshihii lagu qaarijiyay Engineer Ilisow. maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wada Fahdi Yaasiin ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil. qodobada kale ee barnaamij wareedka ku jirana waxaa ka mid ah weeraro laga cabsi qaba inay ka dhacaan Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare. kooxda Farmaajo oo bilowday ololihii ugu dambeeyay ee ka dhana senator Muuse Suudi Yalaxow iyo Farmaajo iyo Rooble oo maanta si waji ka waji ay soo hor fadhiisanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee kulankooda. qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah. waana maalin Sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 9 ee Sebteembar sanada 2021. balse daawada marka hore muuqaalkan like saar oo sii share garee si uu gaaro bulsho weynta Soomaaliyeed nuguna soo biir oo saaxiib naga dhigo si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka.
waa hagaag aynu ku bilownay xogo hoose oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in kooxda farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay hogaaminayaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil oo gacanta nabad sugidda ku maqan tan iyo 26 Juun ee sanadan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa agaasimihii hore ee NISA ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay'adda nabad sugidda baahisay in kooxda Al-Shabaab ay dileen Ikraan. tilaabadaas oo wadna qabad ku noqota Fahad Yaasiin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee farmaajo uu ku jiro ayaa sababtay in Fahad uu sheego in xogta kiiska oo faahfaahsan uu la wadaagayo golaha amniga. go'aanka uu qaatay wariyihii hore ee Al Jazeera waxa ay soo dadejisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga raacdeeyo ninka lagu tuumayo inuu dilo Ikraan Tahliil. tan iyo xilligaas kooxda farmaajo iyo Fahad ay horkacaan waxa ay geed dheer iyo mid gaaban u koreen sidii ay kaga hortagi lahaayeen dadaalada ra'iisul wasaaraha ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan si Fahad looga badbaadiyo in maxkamad lala tiigsado. farmaajo ayaana 18 bishan isugu yeeray golaha amniga si uu Fahad Yaasiin ula wadaago xogta kiiskan. haddaba waa maxay qorshaha ay dejiyeen hogaankii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si ay isaga riixaan dilka Ikraan Tahliil? sida aan xogta ku helnay Fahad Yaasiin waxa uu Ikraan Tahliil ku eeday doonaa inay ku lug lahayd qarixii lagu qaarijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow isla markaana ay aana qabiil iyo ka argosi u dileen shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay duqii Muqdisho kuwaas oo dalka ka baxsaday kadib falka qaarijinta ah Ikraan. sida xogaha soo baxaya ay sheegayaan Fahad waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa in Ikraan ay wada shaqayn ay howlaha ugu fududaysa kala dhaxeeya Al-Shabaab isla markaana ay ahayd laba shaar si guud qatar ugu ahayd laamaha amniga. dilka Ikraan Tahliil waxa dusha laga saari doonaa shakhsiyaad ku hayba Allah u naxariistay Injineer Yariisow si culayska looga dulqaado beesha Fahad Yaasiin ee reer Ow Xasan oo dhalinyaro ka soo jeeda lagu afduubtay Beledweyne kadib markii lagu dhawaaqay geerida Ikraan. ujeedada qodobkan waa in la isku dhifto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gaaljecel iyo abgaal si loo marin habaabiyo kiiska isla markaana horgeynta sharciga looga badbaadiyo taliskii hore ee hay'adda NISA si aan cadaalad loogu helin Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin. dhinaca kale waxaa saacadaha soo socda la filayaa inay kulmaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Rooble sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah kooxaha dhexdhexaadinta wada. farmaajo ayaa ka dalbaday qoorqoor iyo lafta gareen inay la kulansiiyaan Rooble. kulanka ayaana diiradda lagu saari doonaa maamulka laamaha amniga gaar ahaan booliska iyo hay'adda nabad sugidda oo ay isku hayaan. madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu wali ku adkeysanayo maamulka laamaha amniga halka uu diidan yahay arrintaasi Maxamed Xuseen Rooble. labada madaxweyne goboleed ee waawaanta ka dhex wada dhinacyada ayaa sheegaya inay qabaan rajo wanaagsan oo ku saabsan soo afjiridda khilaafka labada dhinac ee daba dheeraaday. madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in la soo xiro kiiska Ikraan sida xoguhu ay leeyihiin. dhinaca kale haddii aynu eegnana cabsi ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo dhawaan qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen. saraakiishii laamaha amniga ayaa sheegay inay heleen xogo sheegaya in Al-Shabaab ay maleegayaan weeraro inta lagu guda jiro doorashada aqalka sare ee Jowhar ka dhacaysa. si looga hortaga Al-Shabaab waxaa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo sugaya nabadgelyada Jowhar. waxaa ku sugan magaaladan oo 90 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaarisay doorashada 8 kursi ee Hirshabeelle loo qoondeeyay. magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa wali ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan xubnaha 8 kursi ee ka imaanaya dhanka maamulkaasi laguna dooranayo Jowhar. diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ayaa la soo gabagabeynayaa gelinka dambe ee maanta sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle. sidoo kale berri oo ahada kuna beegan 12 bisha Sebteembar ayaa qorshuhu yahay inay hadal jeedin sameeyaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxaa la gudageli doonaa qabashada doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya Jowhar. ugu dambeyntiina xogo hoose ayaa sheegaya in kooxda farmaajo ay bilaabeen fariimo cabsi gelin ah oo loo dirayo shaqaalaha dawladda federaalka ee ku haybta ah xildhibaanada dawlad goboleedka Hirshabeelle kuwaas oo lagu wargelinayo inay way doonaan shaqada haddii xildhibaanka ku matala maamulkaasi uu codsiyo senator Muuse Suudi Yalaxow.
sidoo kale fariimo cabsigelina ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan inay wakiil u yihiin shaqaalaha la handaday kuwaas oo loo sheegay inay ciqaab adag la kulmi doonaan haddii xubnaha baarlamaanka ee ku matala Hirshabeelle ay doortaan Muuse Suudi. Tallaabadan ayaa la yaab ku noqotay sida xoguhu sheegayaan shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka, waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhex marayaa arrintan oo lagu tilmaamay cijiyo ku dirir midkii ugu dambeeyay ee laga soo abaabulayo xafiiska madaxweyne Farmaajo. Muuse Suudi ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa senatarkii ugu miisaanka cuslaa 8 senatar ee laga soo doortay Jowhar 4 sano ee la soo dhaafay. Farmaajo iyo kooxdiisu waxay qarash kasta u huri doonaan in Muuse Suudi ay ka guuleystaan si ay kursigan u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan oo aad ugu dhow dhanka madaxtooyada. dhinaca kale Muuse Suudi ayaa diyaarinaya lacagtii ugu badnayd si uu u difaacdo booskiisa. guud ahaan barnaamij wareedkii duhur ee Bandhiga Production ayaa intaa ku dhan. daawada muuqaalkan like saar oo share garee nuguna soo biir si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo degdega. Bismillahirrahmanirrahim. kulati wacan daawadayaal halkani waa Bandhiga Production ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena duhur qodobada ku jirana waxaa ka mid ah Fahdi Yaasiin oo diyaariyay warbixin dilka Ikraan Tahliil dusha looga saarayo beesha Abgaal iyo Ikraan oo lagu suntayo inay ahayd laba shaar si guud khatar ugu hayd amniga dhibanaha aan lagu hayn nolol iyo geeri oo lagu eeday doono inay qayb ka ahayd qorshihii lagu qaarijiyay Engineer Iliso. maxaan ka ognahay warbixinta uu soo wada Fahdi Yaasiin ee ku saabsan dilka Ikraan Tahliil. qodobada kale ee barnaamij wareedka ku jirana waxaa ka mid ah weerar laga cabsi qaba inay ka dhacaan Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare. kooxda Farmaajo oo bilowday ololihii ugu dambeeyay ee ka dhana senator Muuse Suudi Yalaxow iyo Farmaajo iyo Rooble oo maanta si waji ka waji ay soo horfadhiisanaya iyo wararkii ugu dambeeyay ee kulankooda. qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa insha Allah. waana maalin Sabti ah, taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha 9 ee September sanada 2021. balse daawada marka hore muuqaalkan like saar oo sii share garee si uu gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed nuguna soo biir oo saaxiib naga dhigo si aad degdeg ugu hesho akhbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka. waa hagaag aynu ku bilownay xogo hoose oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in kooxda Farmaajo iyo Fahdi Yaasiin ay hogaaminayaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhasha afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil oo gacanta nabad sugidda ku maqan tan iyo 26 Juun ee sanadan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa agaasimihii hore ee NISA ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay'adda nabad sugidda baahisay in kooxda Al-Shabaab ay dileen Ikraan. tillaabadaas oo wadna qabad ku noqota Fahdi Yaasiin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay